في حاجة فوق لو كنت يعني بس كنت أقرين أقول تروح تقرأ هي بس دول دايو ودول طبعا أغلب شيء بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السلام يا ما أنت waxa weeye weynagan wax soo socda sidoo xisbiga soo socda والله تشكر قبله وأخي خباط طبيعي حبي dadweynahana xaq waxa loo leeyahay in xeerkii xisbiga wax laga bedelo ما يلف ما أنت بنت qodobada qaar bedelo qodob cusub oo soo waxa weeydiino hore waxa loo sameeyay laba xil oo aan inta badan ku xusnayn heerarkii baarlamaanku sameeyey ee dhismaha xisaabta labada xil waxay kala ahaayeen guddoomiyaha ku-meel gaarka ah iyo hogaamiyaha qodobkan u cuskanay markii la sameynayana waxay ahayd oo raggii sameeyaan ka mid ahaa in xisbigu xaq u leeyahay xeerar iyo xilal kale wixii u baahdo markaa maanta waxaa la gaaray waqtigii xeerka dib loogu noqon lahaa berigaa waxaa ku qoray guddoomiyaha ku-meel gaarka ah markuu xisbigu guulaysto doorashadii 2017kii in madaxweynuhu 45 maalmood gudahood xilka guddoomiyaha uu ku wareejiyo guddoomiyaha ku-meel gaarka ah iyadoon tartan la gelin iyadoon cid kale lala kalsan iyadoo codka waxba la weydiin xeerkii baasaa lagu qoray maanta isbeddel baa iman doona xeerka ah isbeddelkaasi labadaa xeel ee guddoomiyaha ku-meel gaarka iyo hogaamiyahaba waqtigooda u dhammaaday structurekii hore xisaabtu lahayd baa lagu soo noqonayaa guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenno sida dimuqraadiyadii mulkuhina farayana xilalka waa loo tartamayaa xil meel qof loogu qoraya oo laleeyahay qofkaasaa iska leh ama reerkaasaa iska leh ma taalo xisbigana milkiisu sidaa ma aha reer meel wax loogu xardhow laleeyahay xilka adigaa keligaa iska leh iyo qof meel wax loogu xardhow laleeyahay adigaa keligaa iska leh ma jirto dimuqraadiyaddayna faraysaa in xilalka loo tartamo taasi waxa weeye waa qaacida aan laga gudbi karin waxaa taalla markaa guddoomiyaha xisbiga waa loo tartamaya dad badan baa xaq u leh inuu tartamaan dadkaasumaa ka mid ah waxaan dheerahay dadka ma jirto raggaa xaqa u leh inuu tartamaan ayuun baan ka mid ahay go-aankaa inaan tartamiya inaan tartaminna anigaa iska leh cid ila wadaagta oo xisbigii ma jirto aniga ilaahay iyo qoyskayga ayuun bay ka dhaxaysaa marka anigoo duruufo badan xeerinaya waxaan go-aansaday inaanan tartankaa loogu jiro guddoomiyaha ka qayb gelin oo aanan tartamin sabab aniga ii gaara iyo marxaladda maanta xisbigu marayo iyo xisbigiioo maanta aynu ku wadno inuu noqdo xisbiga somaliland ugu xooga badan oo xisbiga maanta ummaddoo dhan kusoo socoto weeye markaa inaan jaanis siiyo dadkii kale tartamayay oo inta dee waxaan soo ahaa ninka labaad ee xisbigaan soo ahaa iminka 5 sannadood ku dhowaad hawl wixii aan qabanayna waan qabtay ismana lihi waxbaa kugu baaqday xisbiga odayaashiisaan ka mid ahaa hogaankiisaan ka mid ahaa talooyin badan oo isbixiyey baa lagu shaqaynayay oo lagu guulaystay maantana waxaan go'aansaday
xisbigu dee maaha nin keliyaa leh 2,000 oo nin oo xilkaa qaban karaa xisbiga ku jira xisbigu goblan maaha oo hebel iyo hebel iyo hebel buu xisbigu ku goblamayaa maaha rag badan oo khibradda iyo aqoontaa leh oo qaarkood wax ka barbaarinay ayaa jooga markaa waxaan go'aansaday inaan jaaniska baneeyo tartankaa aanad ka qaybgelin ee ragga ila siman ee ila midka ah ee xaqa u leh ee laga yaabo qaarkood inay maanta inaga habboon yihiin haddii loo garto inaan xilkaa sidaa xisbigiina waan ka tegay ma aha odayaasha xisbiguun baan noqonayaa waxaa baan soo haystaaba ninka xisbiga malaa ugu da'da weyn la maanta ducayeelkii baa noqonaya insha allah kariim markaa caqabad kale ma jirto waa dimuqraadiyad waa aniga iyo ilaahay iyo qoyskayga madaliyaa cid culays ugu saarteen ama igu saari kartaa badee in culays la saari karo damayo way taqaanaan dalka 20 sanadood baan soo shaqeynay mas'uuliyadaha ugu weyn dalka soo hayay waxaan gudo iyo waxaan galaba ummaddu way taqaanaan waa aan shakhsiganiga aan uma arkay inay danta xisbiga ku jirto in dad cusub la tijaabiyo sanadkaa inooga hadhay doorashadana in la isku lagu duwado oo xisbiga khilaaf laga ilaaliyo oo xisbiga la kobciyo oo